munaasabadana lagu qabtay magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen madaxda maamulka heer gobol iyo degmada Ceerigaabo maamulka sare ee jaamacadaha East Africa mas'uuliyiinta iyo macallimiinta jaamacadan East Africa farceeda Ceerigaabo madax dhaqameed iyo waalidiin kale aqoon-yahan culimaadudiin haween dhalinyaro iyo marti sharaf kaleba ujeedadooduna ay ahayd shahaadooyin aqooneed oo la guddoonsiinayay in ka badan 50 arday oo dhameysatay qaybaha kala duwan ee waxbarashada jaamacadan East Africa ee Ceerigaabo ayaa waxa ugu horeyn halkaas hadalka isaga dambeeyay gudoomiyaha jaamacadan East Africa farceeda Ceerigaabo Professor Cali Soore iyo gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadaha East Africa runtii maanta xafladan waa farxad aad u ballaaran aynu kala qayb qaadanayno ardayda muddada dheer wax soo baranaysay 4 sano waxbarashada u soo halgantay ku soo sabirtay oo maanta ay tahay maalintoodii ay qalin jabinayeen ay farxayeen ilaynu kala qayb qaadanaa waa shay qaaliya waan ku faraxsanahay waxa maanta ka qalin jabinaya 50 arday oo halkan hortayda fadhiya 5 iyo 30 arday waxay qaadanayaan digriga oo u kala qaybsan qaybta BBA-da inta kalena waxa weeye ardayda kalena waa diploma bay qaadanayaan computer science aad baan ugu hambalyeynaa hambalyo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Bariga Afrika farceeda Ceerigaabo oo isugu jira sida la sheegay digriga iyo diplomada waxaan leeyahay in la idin hambalyeeyo waa mudantiin idinka dalka aqoon-yahan waa maskaxdii shaqada abuur lahayd ba haysan cilmiga lagu abuur lahaa furihiisana waa haysan cidna hawda fadhiinana shaqo waxaan rabaa inaan idin kula taliyo oo qodob muhiim ah bulshada u adeega oo ha ku xirnana nafac jeebkiina galaya adeega bulshada dhinaca madax dhaqameedka iyo waalidiinta xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa iyagana hadaladoodii waxa ka mid ahaa ardaydan quruxda badan ee muddo badan u soo samreysay waxbarashadeedii oo maanta farxad weyn ay u tahay oo ay qalin jabinayaan waxaan leeyahay hambalyo aan idin leeyahay waxaynu arkaynaa maanta waddankeenna dad aqoon-yahana oo dadka kala kaxaynaya waxaynu arkaynaa dad aqoon-yahana oo qabyaaladii ka badatay waxaynu arkaynaa dad aqoon-yahana oo aan cadaalad lahayn idinku kuwa ha noqonina haddaan aragnay in jaamacaddii wax soo saarayso waxaan diyaar naga ahay inaan keenno ardaydii si ay wax u barato taliyaha qaybta booliiska sare ayaa isaguna wuxuu halkaasi ka yidhi hadallo dhinaca amniga ah waxaana gabagabadii halkaasi hadalka isaga dambeeyay maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo kusimaha ahna ku-xigeenka barisaabka gobolka Sanaag Naalay Axmed Jaamac ardayda wax baratay ha ku fekerin oo qura haddaa shaqo weydaan sidii qoliyii hore dee iska taga siduu idinkula dardaarmay gudoomiye ku-xigeenka Maxamuud Axmed Ciise dee sameeya sidaa u dhalin lahaydeen wax cusub aad ayaan ugu faraxsanahay xafladan qaaliga ah ee ardayda reer Ceerigaabo ay ku qalin jabiyeen jaamacadan Bariga Afrika ee ka soo baxeen aad baan jaamacadda Bariga Afrikana ugu mahad celinayaa waxaana intaasi kadib ardayda jaamacadani ka hor intii aan iyaga shahaadooyinka la guddoonsin ay halkaasi uga mahad celiyeen isla markaana hadiyado ay u soo diyaariyeen guddoonsiyeen macallimiintoodii ay wax ka barteen ugu dambeyntiina munaasabadaasi waxaa shahaadooyinkoodii aqooneed lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay jaamacadan East Africa farceeda magaalada Ceerigaabo waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish waa Bari TV Ceerigaabo.